astaamaha lagu garto ninka wanaagsan ee mustaqbalka ka raba run ahaantii waxaa jira kumanaan raga oo waayay wax daryeelo oo fahma qiimaha iyo qadarinta ay u hayaan dumarka. taasina waxaan dhihi karaa waxaa sababay ragga intooda xun, waayo hore waxaa loo yidhi dab ruuxii ku gubtaa dambaskiisa ayuu ka baqaa ama ka fogaadaa. taasi oo aan ula jeedo ragga intooda yar ee dumarka xumeeya ayaa ka qaylo batay ragga intiisa badan ee wanaagsan, waxa ayna saamayn weyn ku yeelataa in ay dumarka qaarkii kala garan waayaan ninka wanaajinaya iyo kii xumaynaya iyaga, maadaama ragga khiyaanada badan ay dhaawacyo badan u geysteen dumarka. sidaa awgeed waxaan jeclaystay in aan dumarka u sheego una sharaxo sifooyinka ay ku garan karaan amaba ay ku dooran karaan ninka wanaagsan ee dumarka qadariya, waayo raggu way isku wada dhex jiraan. waxaadna u baahan tihiin sifooyin aad ku kala garataan ama aad ku kala shaandhaysaan oo aad ku ogaan kartaan ragga intooda wanaagsan ee dumarka qadariya iyo intooda xun ee dumarka khiyaana. haddaba si aad u kala saartaan waxaan idin siinayaa qaacido amaba qaanuun haddii aad raacdo aad ku ogaan doontaan ninka aad xidhiidhka la samayn doonto inuu yahay nin daacada oo wanaagsan misena mustaqbal adiga kaa raba. waxaan isku dayayaa inaan kuu soo koobo astaamaha lagu garta ninka wanaagsan, waxayna kala yihiin sidan soo socotaa. lambar 1 waa nin ay ka muuqato waxa uu aaminsan yahay. araggiisu waa arag muslim oo ma aha nin iska yeelyeela ama isu ekaysiiya dadka gaalada ah. hadalkiisu waa hadal muslim oo kuma hadlo hadalka kiisa foosha xun. waa nin haddii uu hadlana u hadla si xigmadi ay ku jirto. labiskiisuna waa labis akhyaareed. waa nin nadaafad badan oo udgoon badan oo aadan dhibsanaynin inta uu kula joogo. lambar 2 waa nin haddii uu doonayo inuu kula kulmo kuugu imanayo halkii aad degan tahay oo aan ka dhuumanaynin faamligaaga. waana nin qiimaynaya sharaftaada oo kugu qasbaynin inaad bannaanka u raacdo ama aad kula kulanto. lambar 3 waa nin haddii aad wada hadlaysaan xilliga salaada ilaaliya oo ay la weyn tahay. waa nin mar kasta oo aad wada hadlaysaan kuwaaniya oo ku wacyigeliya oo markii aad wada hadashaan kadib aad dareemaysid inuu aqoon kuu soo kordhiyey. lambar 4 waa nin haddii uu hadlayo runta ka sheega intii uu ka awoodo, haba laga yaaba sidaad wax u rabtay inaysan ahaynba, balse aan isku dayin inuu kugu qanciyo waxuusan kuu qaban doonin ama uusan awoodin. lambar 5 waa nin dulqaad badan oo cadhidiisa ayuu kaa qariyaa, dhibtiisana uu kaa qarsadaa, weliba iska kaa cafiya haddii uu khalad kaa dhaco adiga. waa nin aan marnaba kuu sheegan haddii uu abaal kuu galay oo aad iscalfan weydaan, haba laga yaabo inuu niyadjab ka qaado. haddana waa nin adkaysi badan oo ku qancaa qadarka alle. lambar 6 waa nin adigoo maqan iyo adigoo joogaba qaraabadaada xidhiidhiya oo isku daya inuu qanciyo faamligaaga. waa nin aan isku kaa ammaanaynin balse wanaaggiisa aad ka dhex arki karto, sida ay waalidkaaga amaba asxaabtaada ay u jecel yihiin una qadariyaan isaga. lambar 7 waa nin aad u xakameeya naftiisa oo aad ka nabadgelayso ishiisa, carabkiisa, gacantiisa iyo hadalkiisaba in ay sharaftaada waxyeelaan. lambar 8 waa nin go'aan leh oo aan doonaynin inuu wakhtigaaga qaaliga ah kaa lumiyo, oo haddii aad xilli ku wada ballantaan in aad aqal gashaan aan isku dayaynin inuu ka baxo ballantii aad digateen, balse waa nin gacantaada geliya xilliga guurka oo aan jeclayn wakhtigaaga qaaliga ah inuu sheeko kaaga lumiyo. haddaba adiga ma haysataa ninka? ilaahay ha isu barakeeye lamaano walba, hana isu soo dhoweeye lamaano kasta oo mustaqbal iska raba. walaal, haddii aad ka heshay muuqaalka like noo saar, waayo taasi waxay noo tahay dhiirigelin. haddii aad nagu cusub tahayna fadlan subscribe noo saar. kolley xaggaaga wax weyn kama aha, balse annaga wax weyn ayay noo taraysaa. tan iyo muuqaalkeenna xigana waxaan idinku dhaafayaa nabadgeliyo, guulaysta mar walba saaxiibaday meel kastoo daafaha caalamka kaga sugan tihiin.